ururka kalkaalisooyinka iyo umulsooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa tababar muddo 2 cisho u socday uu soo gabagabeeyay bahda caafimaadka ciidanka booliska iyo xeer ilaalinta gobolka Gabiley. Tababarkani ujeedadiisu ahayd sidii la isku xidhi lahaa xeer ilaalinta iyo goobaha dhibanaha lagu adeegayo taasoo ay ka caawinaysay hay'adda UNFPA. ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulsooyinka Somaliland Marwo Khatra Cali iyadoo ka warbixisay ujeedada uu daaran yahay tababarka dhig. waxa laga faa'iideeyaa markaas oo kalena waxayaan in ay iyagu caqabadihii ay sheegaan iyagu ay waajahayaan iyo tad idinku arkaysaan iyo sid u xaleyseen wax la kala baran karo oo daad u kala baran kartaan waa la kala horeeyay in stop centerada qaar baa cusub wadanka kuwaas oo kale caqabado badan oo iyagu imika ay la yaaban yihiin waxay siday in uga gudbi lahaayeen idinku khubarada noqonaysaanba oo waxan si fiican baad u barateen imika si fiican baad u garanaysaan inkastoo ay tahay haddana weli waxay noo haray wax badan oo leynooga baahan yahay inaynu ka wada hadalno oo ah in aanaynu hay'ad iyo urur iyo cidna aanaynu sugine inako aynu isu tashano oo stop center kasta iyo gobolka uu la shaqeeyo dhakhtarka weyn ee ku xidhan yahay inay si fiican isla shaqeeyaan oo ay dhibanahan xuquuqdiisii ay xoog saaraan. geesta kale waxa halkaasi ka hadashay Leila Xaashi oo ka socotay hay'adda UNFPA. UNFPA waxay support garaysaa 9 GBV stop centers ama xarun loogu talagalay dadka tacadiga uu ku dhacay no matter nooca tacadiga uu yahay. UNFPA waxay u doodaysaa mar walbana ka shaqeysaa xuquuqda bini'aadanka oo dhan especially dumarka iyo dhalaanka ama qofka jilicsan hadduu xataa yahay qof caadi oo disability leh mental disorder leh ama any kind of human rights ay mar walba ka difaacdaa. ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay garyaqaan ka socday looyarada haweenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Gabiley Xuseen Cali waxaana kamid ah hadaladoodii si weyn uga wada hadalay sidii intaasi wada shaqayn dhow u yeelan lahayd si cadaymaha loo baahan yahay marka tacadi dhaco intaasi waa sarkal isku xidhan boolisku ku horeeya caafimaadkii xeer ilaalintii intaas haday isku xidhan yihiin oo dhamaystirmaan iyo dhinacii maxaan ku raadayay sharciga oo la talintii ay garab socoto qofkii dhibanaha wuxuu helayaa adeeg kii dhibta geystayna iyadoo xaqiisa la duudsiino la dulmiyeenin barnaamijka noocan ah ilagu yiri stop centerkii Gabiley baa ka soo qayb galaya waxaan go'aansaday in hindo oo xeeraalihii kiisaskan khaas u gali jirtay iyo anigoo mas'uulkii ah aan ka qayb galno sababtuna waxa kala baahanayna fursad baan arkay in ku jirto waayo wada shaqayn dhow in cross relation naga dhaxayn karo qoladii stop centerkii oo hore aanu bariyahan ka fikirayay qaaban isku arki karno oo uga wada hadli karno qaabka loo form kan la buuxiyo warqadda dhakhtarka ah iyo anagu si aan uga wada hadalno oo la isku fahmi karo marka la isku baahdana la soo xiriiri karo oo in halka wixii caqabada laga wada hadli karo tiiba halkan ku suurta gashay maanta laga bilaabana runtii way sii socod doontaa baan jecelahay waan si nimka ku tala jirno waayo imka baraarujin noo tahay in waxa naga dhiman uu yahay in wada shaqayn dhow la yeesho tiiba horta aan ku aragno ku qaadanay talabaadna waxay hayd qaabkii loogu shaqaynayay qofka dhibanaha oo dhibanihii baa dhowr nooc ah dumar rag qof daayara qof waa xanuunsanaya maskaxan naafo ah tacadiyada kala duwan marka taana baraarujin iyo qaabkii client-ka loogu shaqayn lahaa halkan aan ku qaadanay Maxamed Wardi warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.